وأنا وضع السلام يا واحد يقول السلام يا مقع سيدكين عيسى مسيح إلا وحو كوغو يارينات نرش هذا بدشو إلا وحو رباينات بدشو وعاد بلوضينات جدكيسا كنولاتيد عشر كان وحو داها كقاضي دور تلابو أو مهيمة أو كعاونينات بلوضو وعاد كسي ساعتان نلشان عسو وانا تلابوين وباهان تحكين قطر داري بفعل الجيدالي mid ka mid a waxyaabaha ugu adag ee bini'aadamku sameeyo waa isbeddel. taasi maaha in la yidhaahdo dadku ma rabaan inay isbeddelaan, bal hareerahaaga imise qof ayaa taqaanaa oo aan ku qanacsanayn waxyaabo noloshooda ka mid a. imise qof ayaad ogtahay inay rabaan inay beddelaan waxyaabo ay ka mid yihiin sida miisaankooda, shaqadooda, midabkooda iyo timahooda. imise qof ayaa taqaanaa kuwaasoo raba inay beddelaan waxyaabo la taaban karo oo noloshooda sida inay yeeshaan dabeecad wanaagsan ama inay waqti la qaataan dadka ay jecel yihiin. si aan u helno isbeddel macno leh nolosheena waxaan u baahannahay in Ilaah nagu hago si aan nolosha ugu dhex socon lahayn hadaf ama yool. xitaa iyadoo ujeedadaadu tahay isbeddel waa uu naga fogaadaa, sababtoo ah marka uu yimaado isbeddel dhab ah oo toosan oo waara, dariiqa keliya ee dhabta ah ee loogu socdo waa Ilaah iyo ujeeddo noloshaada uu ka leeyahay. waa kuwan qaybaha cajiibka ah. inkastoo haddii aad maqashaan oo aad raacdaan tilmaamahan, Ilaah wuxuu kugu marti qaadayaa noloshaada inaad si habsami leh u beddesho. sideen ugu gudbi karaynaa isbeddeladaas? Rasuul Bawlos waxa uu qoray qorniino cajiib ah oo ku saabsan isbeddelka macnaha leh ee ruuxiga ee waara. dhowrkan shay ayaa naga caawin doona inaan bilowno isbeddelka nolosheena. haddaba markii Ilaah aniga iyo adiga na siiyey si aan u helno jihada cusub ee nolosheena oo aan bilowno inaan isaga raacno. tallaabada ugu horeysa ee la qaadayo isbeddelka macnaha leh waa tan: waa inaan u soconaa si taxaddar leh. Rasuul Bawlos Efesos 5:15 waxa uu inoogu tusayaa, haddaba ka digtoonaada sidaad u socotaan. waxa u soconina sida kuwa aan caqliga lahayn, laakiinse u socda sida kuwa caqliga leh. waxa uu yidhi waa inaad ku socotaa ujeedo. weligaa ma isku dayday inaad gudcur ku socotid? run ahaantii ma fududa. waxaa jiro dabino iyo khataro marka aadan arki karin meesha aad u socoto. bal hadda ka fikir adduunyadan aynu maanta ku nool nahay. xagga ruuxa tani waa mid madow. Bawlos wuxuu halkan nooga digayaa inaynaan si ula kaca ugu socon karin adduunkan mugdiga. waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa oo aan diiradda saarno waxaan samaynayno. aayad ka mid ah isla cutubkan 5 waxay noo tilmaamaysaa oo inay tusaysaa inaynu marku jirnay gudcur. Efesos 5:8 weeyaane. mar waxaad ku jirteen gudcur ka hor inta uusan Ilaahay bilaabin inuu nala shaqeeyo oo maskaxdeena u furo runtiisa iyo qaab nololeedkiisa. waana xaaladdeena dabiiciga ah inaan ku soconno gudcur. Bawlos wuxuu dhammaystiray fikirka aayadan isagoo noo sheegaya inaan u soconno sida carruurta nuurka. haddaba waxaan u baahannahay inaan isweydiino su'aal weyn: weli miyaad ku sii jeedaa adigoo gudcur ku turunturooday, mise si xigmad leh baad u socotaa sidii carruurta nuurka oo kale? lambar 2, sida carruurta iftiinka loogu socdo. sidee baynu ugu soconnaa sida carruurta iftiinka? taasi waxaynu ku samayn karnaa annagoo leh ujeedo iyo hadaf nolosheena ah, iyo inagoo isku huminayna ujeedadani ma tahay mid doonista Ilaah, ma tahay mid xaggiisa aan ugu dhowaanayno. marka aan baranno inaan si habsami leh u soconno, waxaan aragnaa in tani ay la xiriirto caadooyinkeena iyo ficilladayada maalinlaha ah. waxay ku saabsan tahay sidaan u noolaan lahayn noloshan. mahmaayadii 14:15 waxayna leedahay, kuwa garaadlaawayaasha waxbay rumaystaan, laakiinse kuwa miirka lihi waxay ka fikiraan tallaabooyinkooda. si kale haddii aan u dhigo ama loo dhigo, marka aad diyaar u tahay inaad noloshaada beddesho oo aad u noolaato sida uu Ilaahay doonayo, ama aad u socoto marka aad diyaar u tahay, waa inaad isaga si buuxda isugu dhiibto oo aad bilowdo inaad ku noolaatid awaamiirihiisa iyo sharciyadiisa sida lagu sheegay kitaabka quduuska. waxaad si taxaddar looga fiirsan doontaa meesha aad u socoto iyo sida aad u socoto ilaa uu Ilaahay bilaabo inuu nala shaqeeyo. kuma mashquulno meesha iyo habka aan u soconno. kuwa Ilaah u yeedhay
si kastaba ha ahaatee waa inay ku noolaadaan ku socnaanta ujeeddo iyo toosnaan. Yeremiya 10:23 waxayna leedahay, haddii aynu ku xisaabtanno fikradeena iyo caqligeena inaynu dhibaato la kulmi doono. taasi waa sababta aan marar badan u aragno dadaallo fara badan oo guuldaraysta. waxay ka tagaan sida uu Ilaah la doonayo. haddii uu dhab ay kaa tahay isbeddelku, waa inaad Ilaah ka dhigataa xarunta yoolka geedi socodkaaga. isku soo wada duub, tallaabada ugu horreysa een hadda bilaabaynaa waxay noqonaysaa inaan ka beddelno nolosheenna oo aan si taxaddar loo soconno. taasi waa ku noolaanshaha ujeeddo oo aad Ilaah ugu oggolaanayso inuu isagu ku hago. 3. dib u hubi waqtigaaga, ama si xigmad leh ku bixi waqtigaaga. Rasuul Bawlos wuxuu sidoo kale ina barayaa mid kale oo muhiim u ah isbeddelka nolosha, sida ku qoran Efesos 5:16. Masiixiyiintu waxay u baahan yihiin inay diiradda saaraan bixinta waqtigooda, waayo maalmuhu waa shar. marka aynu eegno adduunka inagu xeeran iyo dhibaatada qalbijabka iyo masiibadaan aragno, way adkaan doontaa inaan Rasuul Bawlos kula doodno maalmuhu inay shar yihiin. waa xaqiiqo fudud oo nolosha ah inaan ku noolnahay adduun xun. waxa keliya ay tahay inaan samayno waa inaan daarto wararka oo aad aragto dhammaan waxyaabaha xunxun ee socda. laakiin Rasuul Bawlos keliya kuma walwalayo ogaanshaha in dunidu shar tahay. wuxuu noo tilmaamayaa waxaan u baahannahay inaan samayno. waxaan u baahannahay inaan ogaano in hadda la joogo waqtigii isbeddellada waaweyni ee nolosha lagu samayn lahaa. waad garanaysaa hadalladan aan isticmaalno. ma jirto waqti la mid ah waqtigan. taasi waa run marka ay timaado in la sameeyo isbeddel weyn oo muhiima u ah nolosha. waa inaynaan isdhigan. ma awoodno inaan sugno. waxaan u baahannahay inaan qaadno tallaabo waqtigan. waqtiga waa in laga faa'iidaysto si xigmad leh. iska daa waxyaabaha waqtigaaga kaa luminaya, oo waqti badan u hur xiriirka aad la leedahay Ilaahay. ha u oggolaan in ay simbiriraxato iyadoo aanay lahayn ujeeddo ama yool naftaadu.